ها مدن ama marwo ku soo dhawaaw waa digital literacy ee ah koorsadeeni la dagaalanka jahliga tiknoolajiyada waxaan maraynaa cashirkeedii 12aad cashirkan waxaan ku baranaynaa fahamka internetka markaad rabto inaad ku xirmato iyo optionada aad haysato nuuc doono ha noqdo computerka haysato waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad internetka ku xirmato macnaheedu ay tahay inaad u baahan tahay network adapter marka network adapter waa maxay network adapterku laba nuuc ku yimaada ama waa mid fiilo ay ka gasho gadaal ama waa mid frequency oo wifi ah ee ay soo gasho mawjad sida channel wadata channelka 9aad channelka 6aad channelka 11aad ama waa wireless ama waa wired way shirkadaha guryaha geeya internetka waxa loo yaqaanaa internet service providers gurigaaga waxay ku keenayaan fiilo la soo dhex mariyay telefoonka guriga kuugu xiran si aad internetka u gasho bishiina waxay ka qaadayaan lacag magacyada kale loo yaqaan waxa laga yaabaa inay tahay cable modem network ama waxa laga yaabaa inuu yahay fiber optic ama inuu yahay ADSL ama inuu yahay ateeno lagu siinayo wireless ahaan internetkaas badanaa internetku wax free ma ahan lacag ayuu kaaga baahan yahay bil walba inaad bixido sida telefoonkaaga aad mushaar uga bixido bishi ama uu noqdo mid ah pay as you go ee ah intaad isticmaasho kaliya bixi oo top up ahaan aad u adeegsato marka wifi-gu waa waxa sahlan ee ku ogolaanay inay dhowr computer guriga wada jooga ee ku wada xirmaan internetka fiiladu waxay ku xiran tahay qalabka guriga ku yaala ee internetka laga galayo inta godow leeyahay badanaa waxay wataan soo routeriska ama routerada yararka ah guriga la keeno waxay wataan 4 god ama 4 computer ku xirma karta ama waxa ku xirma karta 2 computer iyo hal printer ayaa ku xirmi kara ama 3 computer iyo hal printer internetka connectivity optionska haysato ama sida loogu xirmo ama waa fiilo la'aan oo frequency ama waa fiilo wireless oo wifi laga soo gaabiyay wireless fidelity ama waa fiilo oo loo yaqaano fiiladan RJ45 ama ethernet cable dunida saad ula xiriirtood email u dirsatood warbaahinta bulshada aad u gashood la socoto waxa socda ama maalayacni ha noqdaan ama kuwa ku anfac ha noqdaan waxaad u baahan tahay internet digital literacy waxaan ka rabaa inaad fahamto saad internet u gasho inaad haysato network adapter hal mar marka si ituso itaabsiya aan ku tuso hal mar haddaan ku tuso si ituso itaabsiya computerkaaga fiilo ama oo kula xiran yahay ama frequency hadda computerkan fiiri wuxuu kula xiran yahay si fiilo ahaana haddaan tago network and internet settings waxaan arkayaa halkan oo soo baxaya qaabka aan ugu xiranahay networka u fiirso waxaan ugu xiranahay si ethernet ah ethernet maxaa niri waa fiilo oo ethernet 0 ayaan hadda kula xiranahay u fiirso waa ethernet hadda meeshan wax wireless kama muuqdaan waa fiilo ahaan ayaan computerka internetkiisa u isticmaalaya haddaan tago change adapter setting waxa la igeynayaa adapterka ama network interface-ka ma xasuusta inaan ku yiraahdo adapter u baahan tahay waa kan adapterkan waa network interface card ee fiilo ay gasho fiilo ayaa kuma sawirana waa u jeedaaba detailkiisa haddaad tagto waad arkaysaa waxa lagu siiyey ee aad internet ku galayso sida internet protocolkaaga iyo lambarkiisa okay taasi waa ti computer kale waxaan hadda aan ku tusayaa settingkiisa wata wireless key haddaan tago setting ee aan tago network and internet settings waxa ku xiran halkan waa wifi wifi-gan fiiri magaciisa waxa la yiraahdaa waa Rauf net ee ah wifi-ga computerkan hadda uu internetka ka adeegsanayo ama waa fiilo oo sidaan ah ama waa wifi oo sidaan haddaan dhaw marka show available network ee laga wado networkyada jira itus halkan ayuu kaaga soo baxaya waa ka halka ayuu kaaga soo baxaya haddaan tago propertygiisa waan arki karaa haddaan dhaho marka manage now networks ee laga wado maamul networkyada jira waa arkaa halkaan inta ku dhuftaan waxaan dhigi karaa forget oo laga wado ilow ama tirtir ama propertyga inta tago ayaan waxaan ogaa karaa xog ku saabsan networkan sida IP address kala siiyay iyo protocolka isticmaalayo ah 802.11g iyo banko isticmaalayo ee mawjadaha ilkaha gaagaaban iyo mawjadaha ilkaha dhaadheer tani waa mawjadaha ilkaha gaagaabna 2.4 waxa jira 5 gigahertz ayaa jira tana waa 2.4 channelkan isticmaalayo markuu iro waa frequency iyo mawjad soo kuma irin mawjada channelka isticmaalayo waa ayaduna channel 11 waaye si uusan interference ugu sameyn microwave iyo wixii lamid ah marka computer saad u gasho internet waxaad u baahan tahay laba si ama waa fiilo ama waa fiilo la'aan inta ka faa'iideyso libax waxaan rajaynayaa libax ama libaxad inaad wax badan ka faa'iido cashirkan fadlan haddaad ka heshay falanqee hoos ka faallo waxaad ka fahamtana fikir ahaan u dhiibo mahadsanid haddaan ku iraa dhacdana amana dhaliil amana dhiirageli dhambaal hoos dhig aad baan kuu salaamaynaa mudane ama marwo mahadsanid waa digital literacy iyo la dagaalanka jahliga tiknoolajiyadda